nahay anagu reer Sheekh Saxaaq baanu dad kale oo la dhiignahay boqorkayn baanu ku dhimanaynaa ciidamadeena waynu bogaadinaynaa ciidankeena qaranku waa ciidan wanaagsan waynu la jiraa waynu garab iyo gaashaan baynu nahay aynu iska celeynaa daaroodna waynu sheegaynaa runta daaroodna waynu taagaadaa sida ay midka u yihiin baynu mid u nahay naguna aad iyo aad waxa noo dhinaa oo kaliya hal shay shaygaasna malaha hadda nagu qasbaysaa baaqinaya inaanu idin layno ayuunbaa noo dhinaa marka runta idiin sheego oo mayd badan oo idinkaa aanu daadinno ayuunbaa dhinaa dushiinni hareerihiinna tago waxaa wiil qori midowsika inamada nin waliba degaankiisa aanay halkaasi ahay iyo duruufta qaba ayay idin dul taagan koob iyo 10 guutoo ciidamada qaranka ah ayaa 30 intaa 50 kilomitir maanta ku hareeraysan arrinta SSC haddii aanu eegna waxay sidoo kale ii sheegtay caqabadaha ay hadda wajahayso Soomaaliya inay qayb ka tahay dhinaca colaadaha la xiriira ka gudoomiye xisbiga aan sida ay ahayd in loo wajaha isla markaa xukuumadan cusub ay u wajahda maxaanu kala soconaa gaar ahaan arrimaha maxaabiis haddii aanu eegna arrimaha siyaasadda qaabka loo wajahay waqti xaadirkan wax tala dowladda idinka soo weydiisay in xaaladda nabad lagu galo nabad lagu dhameeyo maxaabiista laga shaqeeyo sidii la isu idaarin lahaa arrintaasi waxay u baahan tahay in si walaalnimo leh dadkan dad walaalaa baanu nahay yaa deris baanu nahay walaalaanu nahay dhaleeyaanu nahay waxa weeye ilaahay baa isu kaaya dooray annagu ismaanu dooranta ilaahay baa isu kaaya dooray in la isku muquuniyo iyo xoog xal ma keeno taa ma aaminsani carab iyo labadiisa daanbaana ugu dhowo way isqaninaan waxaa muhiima in la xalliyo yaa xagga iyaga annaga waxba ka baaqan maayaan walaaladayana waxaan rajaynayaa inaanay xaggooda waxba ka baaqan doonin dad isyaqaan baan nahay dad waxaan nahay wada dhaqmay iskaranaya waxa weeye dadkaa beladu dhex marto mararka qaarna waanu nahay markay isu yimaadaan la isku ooya قلبي برمود انا هاي والله في كم بالحم قلبي قاعد يقتل انت اجيك الجوك قف كل دوني